qaraxa waxa uu ka dhacay isgoyska Macalin ee magaalada Muqdisho oo aan ka fogeyn Ex Control Afgoye wararka ayaa sheegaya in nin ismiidaamiyay oo walxaha qaraxa isku soo xiray oo beegsaday gaadiid ama ay wateen ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa gorgor oo xilliga doonayay sida la sheegay in ay gudbaan wadada oo dhagax ku xiran xilligaasi waxa ku howlanaa cagaf la qorsheynayay dhagax ay ka qaado ciidamadu ay gudbaan balse qofka ismiidaamiya ama isqarxiyay ayaa la sheegaya in si toos ah uu soo galay halka cagaftu ay tilay dhimashada wararka ayaa sheegay in ay ka bad yihiin 5 qof oo isugu jira ciidamada iyo sidoo kale dad iyagu halka ku ganacsanayay dhaawacyada qaraxii ka dhashay ayaan ilaa hadda la xaqiijin inkastoo ay ka badan yihiin sida la sheegay 10 qof oo ka agdhow halka qarax uu ka dhacay guud ahaanba dadkii dhibto halkan ay ka soo gaartay ayaa loola cararay isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho si caafimaadkooda halka loogu dabiibay guud ahaanba waxa joogsaday isu socodkii wadada isku xirta Macalin ee Ex Control Afgoye oo halka ugu badan gaadiidka iyo sidoo kale mootooyinka Faykonta ama labulgaaleeda loo yaqaan isaga kala gudbaan hadda ciidamada booliiska dawladda federaalka Soomaaliya ayaa halka yimid iyagoo sameynayay baaritaano ku aadan sida rasmiga halkan wax u dhaceen inkastoo baaritaanada ay sameeyeen ciidamadu wax faahfaahin dheeraad ah aanay ka bixin balse hadda ciidamada ayaa gabi ahaanba isaga tagay halkii qarax uu ka dhacay balse waxa la filayaa in goor dhow laamaha amniga ay si guud uga hadlaan qaraxa iyo sidoo kale waxyaabaha xogta dheeriga iyagu ay ka hayaan Maxamed Cabdi Xasan Kalsan TV Muqdisho